bini aadamka waxaa soo food saaro mararka qaar murugo taasoo ga imaanaysa geerida qof agtiisu ku weynaa ama dhammaadka cilaaqo uu lahaa dhaqaale xumi iyo shaqadoo laga soo eriyo ama caafimaadkiisa oo waayaba ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay suuratulbaqara aayadda 55aad walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waalthamaraat wabashir الصابرين waxaan idinkugu imtixaanaynaa cabsi baahi iyo inaad weydaan maal iyo naf iyo miro laakiin ha bishaaraystaan kuwa samra haweeney la oran jiray Elizabeth ahaydna dhakhtarka dhimirka waxay la tacaali jirtay bukaanada rajadoodu ay yar tahay laguna soo sheego xanuuno aanay ka kici karin waraysiyo bukaanadaas la yeelatay buuggeeda On Death and Dying ay qortay 1969kii waxay kaga hadashay 5 marxaladood dadka murugaysan ee murugoonaya ay maraan marxalada koowaad waxay ku tilmaantay denial diidmo inuu qofka ku noqoto wixii ku dhacay lama filaan ama uu ogolaan waayo waqti ayna ku qaadataa inuu ogolaado in musiibo noocan ah ay ku habsatay waxay kula noqonaysaa riyo wixii dhacay marxalada labaad waxay tiri bargaining ama gorgortan sida qofkii inuu yiraahdo oo kale caafimaadkayga hadduu ii soo laabto waxaan samayn doonaa sadaqo inaan bixiyo ama sidaan inaan yeelo sidoo kale inuu ka gorgortamo marxaladooyin wixii soo dhacay inuu ka shallaayo oo kale sida inuu yiraahdo cisbitaalkan ka fiican haddaan geen lahayn qofkan wuu badbaadi lahaa gaalada waxay samayn jireen ayagoo ilaahay ku kufrinaya markay dhibaato soo gaarto sida badda markay ku jiraan oo kale hirar waaweyn ay imaadaan waxay dhihi jireen ilaahayow haddaad naga badbaadiso adigan ku mahadinaynaa waanu kuu soo laabanaynaa mana kugu kufrinayno laakiin markii lasoo badbaadiyana way ku noqon jireen marxalada saddexaad waa anger ama xanaaq inuu naftiisu ku eedayo wixii dhacay ama qof kale inuu farta ku fiiqo asagoo ka xanaaqsan markaas wixii dhacay marxaladda afraad waxay ku tilmaantay depression ama ifti'aab murugo ay dhashay qofka in rajada ku yaraato ma rabo inuu wax qabto go'aanada way ku adkaanayaan inuu qaato iyo in diiradda wax uu saaro waa sadness waa xaalad murug ah marxalada shanaad waana midda ugu dambaysa waxay ku tilmaantay acceptance inuu qofkii ogolaado markaan inuu soo gaaray inuu ku qanco wixii dhacay una yaqiinsado waxaan inay dhaceen qadarullah maa shaa facal marka marxaladan qofka asagoo garanaya wixii dhacay inay xanuun ahaayeen wuxuu ogolaanayaa inay qayb ka mid ah nolosha ay tahay mustaqbalkana uu markaas uu ku eego indho wanaagsan oo rajadii ay usoo laabato bukaanada oo kale waxay tiraahday marxaladan markay soo gaaraan waa markay ugu farxadda badan yihiin oo noloshooda dib ay usoo laabato guud ahaan waa dabiiciga bini'aadanka inuu falcelin uu ka bixiyo dhibaato markay soo gaarto falcelintaasna waxaa ka mid ah inuu murugoodo tusaale waxaa kugu filan nebi sallallahu alayhi wasallam xilligiisii waxaa soo maray murugooyin badan inuu waayo xaaskiisa adeerkiisa 1 sano gudahood camul xusni loo bixiyey in ilmihiisa isagoo nool ay geeriyoodeen in dhibaatooyin badan aan soo koobi karin markaas ay soo gaareen waxaa habboon marka qofki inuu quusanin una u arkin dhammaadka adduunka oo wax walbana laga bixi doono salaada iyo samirkana uu kaalmaysto haddii murugo ay ku hayso allah kaa dulqaado aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan intaan ku kulmayno muuqaal kale aad iyo aad ugu mahadsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا ذكره يكددوي قفكي كبحا كفاح قلي وقتي كلي فاذك لقي قلبي كلي وكربوغ كشيديو تادو ويسكابر اسكاشدي او مكالا مرمل وقتي كلي فاذك لقي